السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo muuqaal cusub oo walaashinka u sarsiid haddii ay tahay marka koobaad naaragtid fadlan channelka subscribe dheh haddii dadkii hore ka mid tahayna like tii share-taadu waa noo muhiim. maanta waxaan noo hayaa muuqaal cusub gabadh Amerikaanada oo diinta Islaamka soo gashay laakiin muslimiinta aad u canaananaysa markaan daawano. I moved to Winter Haven. waxaan u soo goolay magaalada Winter Haven saan la noolaado walaashaydan mataanaha ahayn. waxaan ka soo tagay kiniisadii deegaankayga ee aan tagi jiray. aad iyo aad ayaan ugu murugaysnaa inaan ka soo tagay, laakiin markaan arrinta aad uga fakaray waxaan helay koox diimeedyo fara badan. marba mid baan geliyay, waan ka baxay ilaa ay aakhirkii aan ku dambeeyay kiniisadda deegaanka. galab galbaha ka mid ah waxaan go'aan ku gaaray inaan Ilaahay u jeesto xaggiisa bilaa sabab, anoo sababiga keenaysa aanay jirin. salaad baan Ilaahay u tukaday, ilaahayna waxaan ka weydiistay inuu xaqiiqada i tuso. waxay doontaa ha ahaato xaqiiqadaas, say doontana ha u ekaato. arrintaas 3 jeer ayaan ku celiyay kala duwan, yacni 3 waqti oo kala duwan ama 3 maalmood oo kala duwan. markii aan nasasho u fadhiistay habeenkaas ayaa waxaa la soo qaraacay jalaskii albaabka. walaashaydan mataanaha ahayd baa ku tiri inantaadii baa halkan taagan. waxaan ku inantaydee tee labada. markaa waxay igu tiri waa Lou. waxaan ku uri waxaan u baxay inaan soo dhaweeyo iyada. marka halkayga ku soo noqday waxaan arkay iyadiyo wada daboolan si kale ahayd muwaadinada Amerikaanada. waxaan ku dhashay hareeraha Chicago, waliba gobolka Illinois. waa labadeeda waalid ku dhashay iyaguna Chicago siiba gobolka Illinois. eeday waxay ka soo jeedaa qoys ah Catholic Roomaanka ah. aabahayna wuxuu ka soo jeedaa. waxaan ku uri inantayda Louie waxaan imika u tukanayay inaan xaqiiqada ogaado. wax allaala waxay igu qaadanaysaba 3 waqtiyo kala duwan ayaan arrintaa yidhi. Amerikaan ka soo noqday dabad hooyaday ayaanu imi. waxaan mar walba Ilaahay weydiisanayay in uu igu ilhaamiyo inay tahay in hooyaday u sheego waxa aan rumeeyay iyo inaan iska daayo arrintaas. waxaan Ilaahay weydiin jiray inay hooyaday qalbigeeda u diyaar u yahay inay xogtan maqasho iyo in kale. isii Ilaahay oo calaamad wuxuu Ilaahay tus aniga hay timaado. haddii ayadu ii timaado ay weydiiso waan u sheegayaa, haddii kalena waa iska aamusnaanay. maalin anoo xilligii duhurka salaada ku jira ku guda jira waan sujuudsanaa ayay hooyaday qolkayga hurdada soo gashay, haddana way ka baxday. waxaan arkay habeenkaa iyadoo rukuucaysa marna sujuudaysa. arrintu aad iyo aad ayay iila cusboonaatay aniga. markay ahayd 7 subaxnimo ayay hooyaday ii timi iyadoo weydiinaysa hurdada intay iga toosisay 2 su'aalood oo xadidan ayay weydiisay. waxay ku tiri waan ka xumahay haddaan ku dhibay, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo 2 arrimood. waxaan ku uri waayahay tafadal hooyo. way weydiisay waxay ku tiri weli miyaad tahay masiixiyad? sidee ayaad u aragtaa arrinta ay masiixiyiintu ay sheegaan ee ah 3 ilaaha, Ilaahay inuu mid yahay laakiin 3 qof uu ku kala dhex jiro? jawaabta aan siiyay hooyaday markaa waxay ahayd markay walaashaa caawa seexato aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaanay inaan kula fadhiisto. wax kastana waan kuu cadaynay ciddaan ahay iyo waxaanan aaminsanahay. markii ay walaashay seexatay ayay i tusisay habeenkaas markay gaadhay 12 habeenimo. hooyaday walaashiidna ay hurdo tagtay ee aniga hooyaday waxaan wada fadhiisanay miiska yar agtiisa oo ah halka kijada lagu quraacdo. miiska waxaan soo dul saartay quraankii iyo kitaabkii Bible-ka iyo buug yar aan ku qorqorto maaragtay waxyaabaha aan ka akhriyo. aan gacantayda ku qoray. waan wada sheekaysanay 2 saacadood oo ayaan aniga hooyaday wada hadlaynay. waxaan warka bilownay caqiidadeeda asalka ahayd ilaa ayaan gaarnay. waxaanu baranay labada kaniisadood baan ka barnay Catholic iyo Protestant-ba.
hooyaday waxaan usoo bandhigay qur-aanka iyo islaamka iyo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. markii aan dhammaynay gorfayntaas 2 saacadood kadib, saacadii waxay gaadhayba 2 habeenimo, hooyaday gacantay miiska soo saartay. kitaabka ayaan kor u qaaday, wejigayga ayaan saa u saaray. waxaan bilaabay inaan dhunkado. waxaanan lahaa, maxay cidina noogu sheegi weyday arrintan? maxay idinoogu sheegi weyday arrintan? su-aal aanay muslimiintu jawaab helin si aynu uga gaabinay diinta islaamka iyo in ummadaha gaadhsiino. waxay bartay Nuur sida loo tukado, sida loo weysaysto ee salaada loogu weyse qaato, siday hooyaday salaada u tukan lahayd, xarakaadkeeda iyo fadhigeeda sida ugu wanaagsan ay u gudan lahayd. waxaan mar walba hooyaday ku dhiirin gelin jiray inay suuradda Faatixa ay xifdido, iyadoo af carabi ku akhriyaysa, sidoo kalena English ku xifdido. bar English baan ku xifdiyay, barna af carabi. aad iyo aad waxay ugu dadaali jirtay hooyada xifdigeeda. English bay ku xifdi jirtay si ay u fahanto salaada iyo macnaheeda bilowgaba, si ay ugu dadaalayso salaadeeda macnaha ay leedahay inay fahanto bilowgiiba. faraqa u dhaxeeya qofku marka uu diinta uu ka dhaxlo aabayaashii iyo marka uu qalbigiisa uu raadiyo aad iyo aad buu kala duwan yahay. waa dareemi karaysaa bal markii ay heer fiican ka gaadhay hooyaday, waxaan sii watay arrintaydii quraan akhriska iyo barashadiisa. markay hooyaday aan u dhameeyay barashadii gurigeeda dhexdiisa, waxaan dareemay nafis, waayo waxaan u arkay inay imika maaragtay arrimaheedu kala degan yihiin. guriga hooyaday waan ka tegay, arrimo aniga ii gaara baan u baxay. sanado dheer ayaan diinta islaamka ku jiray. waan akhriyayay, waan baranayay, waan tukanayay. habeen ayuu ilaahay wuxuu i tusiyey aayad suurad ku jirta. aayaddaasi waxay odhanaysaa, maanta ayaan idin dhammaystiray diintiinii. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله mahadleh. fiidiyowga intaas ayuu ku dhammaaday. gabadha muslimadda ee walaasheen ah, su-aasheedaasina waa mid ay tahay inaynu jawaab u raadsano. su-aasheeda ah muslimiintu ama maxaa noogu sheegi waaya waxaan innaka muslim ahaan ayuunbay inagu dhacaysaa kolley. warkaasina wuxuu caddeyn u yahay sida aynu maaragtay uga gaabinay adduunka mas-uuliyadda inaga saaran inaynu fariintan gaadhsiino. fariintii ugu dambeysay ilaahay uu soo diray uunkiisan uu abuuray. على كل حال فيديو نوحي حسوسي آيات القرآن كهذه الهيري والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفقدوا كده إلهي مارتي جدكيس وجهاد وجهد كل بحيو إلهي نوحنون إلهي بلنقا مركا ميدور بينك وين سيس ربع إنك تهين إلهي ويتسن إلهي نحنون ويمو ينكرنو إن طريق صحة كجمع إلهي كلا
salaad kastana wayna ka maaragtay ku ducaysana ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim marka videogaas intaas ku dhamaaday salaamu alaykum dhamaantiin